waxa taariikhda waxaan ku haynaa waxa lagu yiri farax dabasheeda oo daarimi magaaladii daamre oo ku fiicneeda maxaa ka keenay marka wuxuu yiri waxaan ka uga imid baqal ahmaariyo iyo boqortooyada bahawaan uga mid biro degmada daarimi mid ma aha waxa weeyaan waxay soo bilaabantay qarniyo hore iyadoo wadankan wax magaalo la yiraahdo ka jirin ayaa waqtigii ay hayla degmo magaalada ahaan jirtay adal state ay jireysay Itoobiya wax la yiraahdo ma jireynin Itoobiya waxay ahayd boqortooyin state bay ahaan jirtay waxay ahaan jirtay waxa la oran jiray Tigraygu state gaar u lahaa Oromadu waxay ahayd state gaar boqortooyo gaar afartu boqortooyo gaar ay lahayd Soomaalidu boqortooyo gaar ay lahayd oo state gaar ay lahayd oo adal state baa la oranayay waxa caasimadeedu waxay har saylacna waxa la soo degi jiray waqtiga waxa weeyaan meeshii labaad caasimadii labaad safarka ka yimaada Makiya Madiina jid halkan jidka laamiga ma jiray wax doon leeyda iyo wax markab leeyda iyo waxna ma jireen bad soo martay ma jirin bad way isku banaaneed oo halka meel sayl agteeda ka banaaneed oo Makiya Madiina awrba safarka keeni jirtay awrtaas har bay heeri jireen awrtaay markay ka soo laga soo raray saylac halkana meeshii labaad ay ku nasanayeen halkana daarimi magaalo daarimi baa ahaan jirtay dabeed waa ogeeyeen waxa saf meel kale oo magaalada geeska Afrika waxa loo soo doonay jiray safarka waa harar bay ahayd harar baa safarka la keenay jiray marka badaha wixii ka soo gudbo dhan harar baa la keenay jiray Afrika oo dhan meesha wax ku soo doonaysay ilaa qarnigaas ay magaalo ahayd kun iyo waxa laga soo bilaabo adal state waxa la dhisay 1490 bayd 1490 amiire kala duwan baa inta soo maray oo state ku Axmed Gure 1500 iyo something buu hayso wuxuu qabtay markay boqortooyadii ka dhintay birkii kale ilaa waqtiga Axmed Gure qoobatadii ahayado meeshii uu la sheegay ku dhashay waa halkan way agteena weeyaan wadooyinkii awrtu soo mareysay ilaa harar ilaa halka la iska gudbinayay awrtu 1500 awr 2000 awr oo wado uu dhar iyo timir iyo alaabo wado ganacsiga meeshu harar buu ahaa meesha ganacsiga meeshay mareysay marinkii oo mareysay weeyaan ilaa qarnigaas bay magaalo ahayd oo magaalooyin kale agagaarkan ka jireen oo jirin marka waxa weeyay taariikhdeedu waa noocaas oo maaha magaalo hadda cusub waa taariikh hore leedahay Axmed Gurey waa qaldi meelihii uu dhigan jiray hubkiisa iyo kaydasiisa iyo wuxuu dhan buurahan qalcadaha uu dhigan jiray oo dhan ba ay jiraan masaajidada qarniga la dhisay baa hadda magaalada baalkeedii sii yaalo wada aasmay marka waxa weeyaan waa goobtii Axmed Gurey ku dhashay waa Axmed Gurey qalcadii wax dhigan jiray hubka iyo kaydka iyo wax hore oo dhigan jiray hadii aan degib sii faahfaahiyo dhinaca galbeedka waxay kala leedahay xad daarimi waxay kala leedahay councilka Diridhawa waa degmo aad u ballaaran councilka Diridhawa ay xad leedahay dhinaca marka la eego dhinaca koonfur marka loo yiraahdo waxay kala leedahay Oromiya xagga kalena hadda waxa marka waxa barina waxa ka xigtaba waa Tuliba ka xigta waqooyina waxa ka xiga degmada Dambal baa ka xigta afarta jiha waa degmo aad u ballaaran xagga jinacsani bay ka soo noqotaa oo jinacsani bay ka soo noqotaa xaggana waxay ka soo noqotaa degmadu Fiyaanbiro halkan jinacsani dacana xadka uu ba soo go'day waxay ka soo noqotaa Fiyaanbiro degmada Fiyaanbiro Oromiya iyo xad la leedahay dhinacan kale koonfurtana waxay ajirso goora ayay xad la leedahay xaggan wax degmo la yiraahdo waxa naga xiga waa ajirso goora marka waa degmo aad u ballaaran halkan loo wanaajiyay ka soo noqotaa oo wad garanaysaan wajidka soo mareysaan marka degmadu boqolkiiba boqol waa degmo xagga maxaa la yiraahdaa macdanta iyo waxa khayraadka aad macdan baa ku buuxda godad baa ku yaala buuraha hadda dhax gasho hadda kuwa waxa ku yaala xitaa meerka rugu daayisay waa godad meerka rugu ay daayisay godad laga helo oo waxa ku jira waxa yaala
nimankii buurta geli jiray onaagtiiba ka guudan jiray inta badan dhul hawd oo xooluhu daaqsir loo tago hawd marka abaaraha uu jiilaalka uu xooluhu galaan weeyaan oo hadda maadaama colaadii wax jiraan oo labada qolada ayna ma soo gasho anaga lafteedu ma soo lama galay waa dhul iska lama degaan oo iska labada qolaba ay ka cabsadaan oo wala kala ilaashan lama gali kare laakiin macdan waa dhul macdanta ay aad hodan ku ah dhinaca kale wax soo saarka waa dhul xagga khayraadkeedu malabka iyo caanaha iyo waa dhul waad arkaysaa hadii caana geela doontii hadii caana lo'da doontii hadda dhinac walba wax walba doonto waa dal xoolaad waa dal beeraley iyo xoolo dhaqato labadaba hadda beeraley weeyaan dadku beeraha waa dhaqataa inta hore berigi hore dadku wuxuu iska ahaan jiray dad xoolo dhaqato aaga waxa loo badnaan jiray dad xoolo dhaqataa un bay iska ahaayeen oo xagga xoolaha dhaqashada aad ugu wanaagsanaayeen marka degmadu waxa weeyaan taariikhdeedu waa nooca diiwaanka in yar ku sii faafay waqti qarniba waxa la yiri waxa jiraysa waqtiga aniga awowgeygii afraad baa ahaa ninka horta cashuurtu ka qaadi jiray faarax dabasheed baa loo dhigay berigii dambe la jabiyay boqortooyadii baabacday wadankii laga jabiyay la jabay ba ilaa halkan laga sii jabo saylac baa la galo waxa taariikhda waxaan ku haynaa waxa lagu yiri faarax dabasheed oo daarimi magaaladii daamre oo ku fiicneeda maxaa ka keenay marka wuxuu yiri waxaan ka uga imid baqal ahmaariyo iyo boqortooyada baawiyaan uga mid biiro taariikh dhigay oo taariikh lagu hayo marka baqalka ahmaarada maadaama ahmaaradu fardoolay bay ahayd waqtigii ugu horeysay harar mooyaane meeshii labaad ay soo degtay mililki meeshii labaad uu yimid ee waqtiga magaalaha daarin way 60 fardoolay oo ciidamo oo fardo wata yimiday oo soo degay dabeedna waa la weeraray oo macal fardihii iyo wixii oo dhan waa la weeraray nimankii fardoolayga ahaa waa laga qaaday waa laga dibiyo waa la laayay oo dadku wuxuu iska wada ahaa dad iska wada waran iyo gaashaan iyo wax ni walba waxba lagu hubaystaa faras iyo wax la wada wanay ma jirin qori iyo wax la isku ridiyo waxaan ma jiraynin dabeedna nimankii sidii baa lagu jabiyay dhowr jeer bay soo degeen waa la jabiyay dhowr bay soo degeen waa la jabiyay ugu dambeyn aakhirkii 1800 waxaan u maleynayaa 86 bay ahayd 1886 bay toos u soo degeen harar ahmaaradu Itoobiya waan ognahay waa taariikhdeeda waa haynaa 1886 ka hor Itoobiya deegaanka harar wixii ka sareeyay ma wixii ka hooseeyay ma jireen Abyssinia waqtigaas ay waqtiga qabsatay 1897 bayna soo deeyay marka yimaadeen baarimin ay soo dib soo qabsadeen marka degmadu waa degmo taariikhda leh